قريقة باليرتب غضبتي قريقة انت نصنع عليك احدين بقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال kusoo dhawaada channelka AK Vlog caawa waxaan joogaa xaafada Jigjiga yar oo runtii aad moodid xaramka aad moodid ummadii caawa halkan bay joogtaa sababta halka u timinaan idin sheegi doonaa marka hore muuqaalka kusoo dhawaada subscribe saara hadii kalena muuqaalka like saar aad aad mahadsantiin daawadyaal bariyahan YouTube kan ka maqnaa maadaama magaaladii quruxda badneed ee Hargeysa aan waxaan ka soo duubi jirnay وجبت سوق ويناي وهان رنتي واحد أرين حنون يمرقله تنا يقول لي أنا صعب سوا قال أروح بدل ما ينسدوا وجهنا واحد ده واحد نسود بنويه مقالة واحد نسود بنوه قرويني مركا أرين تام مرقده له رنتي عاديات مولا قبل سنة دت كام مرقيسن قران سوق ودي جبتي حلنا إلهي واحد خير بدل ينسيه داودي الواحد شو حافظ تغير خالكن ومهرد لده $1 بلاس وحفلي بدن كينو واحد كاركتين يوتيوب كي ملاسة كاركتين runtii wax ka jira saxmad iyo ciriiri fara badan dadkii magaalada joogay badankooda ayaa caawa goobtan isugu yimi sababta halkan yimaadeen waxa weeyaan inay wax iibsadaan dadkaas oo dhan waxay doonayeen inay wax iibsadaan meesha waa la xidhay sababta loo xidhayna waa salaada cishe ayay gaadhay marka dadkii waa la celin kari laayay dadkan meesha isku ciriiriya qof kasta wuxuu doonaya inuu wax iibsado meheradana waxa la dhahaa $1 plus alaaba iibinaysa waa $1 ilaa $5 wax meesha yaala waa $1 ilaa $5 shayga ugu jaban $1 ka ugu qaalsana $5 iyo inta u dhaxaysa waa fikrad iyo idea iyo maskax la isku dhaafay runtii waa cajiib dad bay soo weydiiyay ugu dhahaa ka waran magaalada Hargeysa businesskeedu waa sidee ganacsigeedu waa sidee magaalada Hargeysa haddii aad idea wadatid waad ka shaqaysan karaysaa wala waa $1 siyaatid haddii aad idea wadatid si fiican ayaad lacag uga helaysaa uga shaqaysan karaysaa laakiin haddii aad maskax wadan yani haddaad fikrad la imaan malaayiin $, haddaad siiyatid waxba ma ka qabsan karaysin lacagtuna khasaarun bay ku gelinaysaa marka meherad waa la xidhay bal magaalada ayaan si guud muuqaal idinka yara duubaya caawa xaafada Jigjiga yar oo aad moodid markii horeba ciriiri ahayd markii horeba dad ku badnaayeen iminkana ay isugu yimaadeen dadkii hore ka badan magaalada jaamka aan la socon karaynin waad aragtaan qaabka u eg tahay runtii maasha Allah xaafadu waxay noqotay xaafadaadu camiran oo suuqi weynaa magaalada Hargeysa uu gubtay suuqi waahan marka dadkii suuqa hoose u dhaadhici jiray wax ka soo iibsan jiray ayaa caawa aan meel la aadin oo doonayay inay dukaamadan iyo meelaha ka dukaamistaan inkastoo aan meherada kale ee suuqa ama kuwa ku yaala xaafada Jigjiga laftigeedu aan sidaa ciriiri u ahayn laakiin adduunka maskax iyo fikrad ayaa lagu kala tagay Outra vez,
daawadayaal waxaan filayaa inaanan idin sheegin meesha saxda ah ay mehradani kaga taalo xaafadda Jigjiga yar. Markaad marayso hoteelka Safari ayaad in yar u dhaafaysaa dhanka waqooyiga ama laamiga aad usoo haysanaysaa la soo leexda ee Safari hormara aad in yar sii haysanaysaa. Kaas ayaa horta ku taala gaar ahaan wuxuu dhowdahay hoteelkii la oran jiray Shayba Hotel eriyada ayay ku taala. Dadka badankoodu meesha waxay u yimaadeen inay wax iibsadaan laakiin eriyada waxa isku jaray dumar baa isku jaray oo aad uga tiro badan ragga meesha jooga doonaya inay meesha galaan oo wax iibsadaan. Marka raggu fursadooda ay iska sugayaan maadaama ay dumarka aan jiri karaan dhex geli karin. Markasta oo meesha ay xaaladdu adkaato oo cidhiidhi fara badan iyo saxmad fara badan dadku isku jiraan albaabka la xiro si bal meeshu kala digto dadka loo dejiyo. Runtii waa cajiib, waa fikrad ay la timi hal abuurka meesha leh qof dumar ah ama waa inanta fikrigan. Inkastoo aan caawa jeclaa inaan gudaha u galo oo meesha wax yaalaan soo eego warbixin idinka keeno laakiin imay suuragelin baan filayaa waayo haddaan sii joogo dee dadku way soo badanayaan marka in waaguba igu bariyaan ka baqa. Insha Allah mar kale ayaan haddii suura gasho aan kusoo noqon doonaa aan waxna ka iibsan doonaa haddii suura gasho.